الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبية الضباطنات هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. محاسن الابتلاء. هل كان شيخ وحكو شيغيا حكمة عوان لوغا دغاي امتحانات كلا مرايو iyo dhibaatooyinka in soo maraya adduunkan intaan joogno wanaaga ay leeyihiin. من لاح له كمال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. من لاح له كمال الآخرة وهذا ابن القيم قفك أي أموقته ويؤفته آخر إيو وينن كيدا إيو لما يستر كيدا إيو ونا كيدا هان عليه فراق الدنيا وحا قفك سيساقا أن وحكا سوقات أكتيسا كو يلانينين أدونك إن لغتاقو معناها كتجد أدونكو ووح أسهلا oo u dhib yar ayay noqonaysaa qalbigiisa adduunyo kuma xidhna mar hadduu arko wanaaga aakhira wey. maxaa jira fil qalbiga waxaa ku jira la yidhaahdaa doonitaan uusan dhammaystiri karin ilaa ilaahay subxaanahu watacaala in loo jeedsada ma ogey. waxaa kaloo qalbiga ku jira waxsha iyo cabsi iyo cidlanimo uusan zuulinaynin, uusan tirtiri karin إلا أنسج إلهي وهشيجيسا في خلوتي مرك إلهي اللي لجون النقضه وربي أدجار كاج أبري صعود وعبادي سنيسو حيل جاس عيد كاتر ترمسا عبسدا إيو إذا النماذج أي كرافيسا وحا قلبي وكجر حزني يمرك أين إيدنا ترترين إلا سرور كمعرفة إلهي سبحانه وتعالى إيا أقونتيسا فرحدا لغو فرحايو أيا مركتا قفكا كقاديس. بمعنى مركي انتا لسكو دارو معنو وحاوي دينة إلهي با اطمئنان لغهلا، الذكر إلهي با اطمئنان إيا الدقنان لغهلا. قفكو ماشي وكو حاسلي وكو نيتسانيه بلو فيرسو مركا أرتو قف قعمها كورو تاغايا oo مثلا كعبدي إلهي تاغن أما ميل في عن تاغن مساجدي oo indhihi ilinta ka socoto oo isaga dhan qofkaas waa qof maqan, waa qof caalam kale ku dhex jira, waa qof raaxo ku dhex jira, waa qof dhaafay wixii xusni iyo murug oo dhan ay dhaaftay weeyaan. rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam حديث الشيخ الألباني الصحيحي إن المؤمن قفك مؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر. بلو في حديث إن المؤمن قفك مؤمن ينضي شيطانه أي يتعب شيطان كي سوو لبا سيدا وقلبو قفك رجو أما قفك مسافره جديد كأوة سفرك gaadiidka safarka la wato hada marbu gaadiidku tabar dareeya, marbu socod ka yareeya, marba la kaxeeya, marba usha lagu dhuftaa, marba safar dheer baa lagu galaa xoolihi. sidaas oo kale shaytaankii na qofka mu'minkii wuu dhibaya. maxaa laga wadaa yatcabu sida wuxuu u dhibayaa oo dhib kale sheeg uu yahay insaanku qofka muslimka markii uu halmaan ku dhaco oo dhikriga ilaahay uu halmaamo shaytaanku uu soo dhaxgalayaa, guduhu uu soo dhaxgalayaa, wuu waswaasinayaa, wuxuu ku beerayaa qalbigiisa waswaaskan waxaa la yidhaahdaa waa aslu dhunuubta oo dhanba asalkeedu meeshu ka kaca iyada wey. haddii uu xuso rabbi subxaanahu watacaala in khanas markaasuu dib u boodaya shaytaanku. markaad ilaahay xustaba dib buu kaaga cararayaa. haddii marka uu ku shubo qofku fa in sabba calayhi siyaat dhikr, haddaad ku shubto walistigfaar dambi dhaaf ilaahay aad weydiisato iyo dikrigiisa haddaad badiso, taasi waxay ku noqonaysaa shaytaanka ul lagu garaacayo oo kale bay noqonaysaa. daacada ilaahay waxa ugu dhib badan oo dhiba isaga weeye. marka fa shaytaanu qofka mu'minkee wanaagsan oo diinta iyo dhikriga afka ku haya shaytaankiisu fi cadaabin shadiidin buu ku jiraa, sidiisaba cadaab buu ku jiraa. haddaba u fiirso faman lam yucadib shaytaanahu qofka aan shaytaankiisa cadaabin fi haadihi dahr daartan adduunyada haddaadan shaytaankaaga ku cadaabin bidikri illaahi wa tawxiidihi wa taacatihi, dhikriga ilaahay iyo tawxiidka rabbi iyo taacada haddaadan ku cadaabin cadabahu shaytaanu fi laakhira, shaytaankaagaa kugu cadaabi doona aakhiro bicadaabi naar, naarta cadaabkeeda kugu cadaabi doonaa, sabab buu kugu noqon doonaa. haddaba falaabudda likulli axadin u fiirso qof kastaa
an yucadiba shayطaanahu aw yucadibuhu shayطaanuhu. hadalkaa waa hadal cajab badan ibnulqayim uu yidhi. wuxuu yihi likulli axadin, qof walba oo adduunkan dadka jooga ah, yacni laba midun weeye, an yucadiba shayطaanu, inaad adigu shayطaankaaga cadaabto ood ka dheerayso wixii wanaagsanaa oo dhan. maxaa laga wadaa cadaabkan? shayطaanka haddii aadan iska naarin, wax walba ood samayn wuu kula samayn, sida axaadiista saxiixa ku sugan aad aragteen oo kitaabta adkaarta iyo aad aragtay guryaha marka lasoo galayo, hadduusan qofku adkaarta akhrinin oo guriga dikriga lagu gala aadan akhrinin, shayطaan baa kula gelaya. cuntada haddaadan aadan iska shayطaankii aadan isagana iska xijaabinna wuu kula cunayaa. gobasha jiifka ana wuu kula gelayaa. reerkaagana waa kula joogaa oo wixii xitaa gobashii iyo sariirtii waa idinla joogaa oo hawshuu qeyb uga jiraa. bal u fiirso, maahas inaas kalena waa xadiis saxiixa oo isagu leeyahay qofkii hadduu albaabka markuu soo galay uu dikriga ilaahay ku galo, wuxuu leeyahay mabiitna meeshani male, caawa meel la baryo, cuntaad cuntaadna male, meelaad seexataanna male. hadduu qofkaasi dikriga u horreeyaba guriga kusoo gelinna, wuxuu leeyahay caawo waxaad haysataan guri aad seexataan, waxaad haysataan meelaad joogtaan, waxaad haysataan cuntaad cuntaan, reer iyo xaas baad haysataan. marka iyo imaa inuu shayطaankaaga aada cadaabto. haddaad cadaabto micnaheedu waxaa weye haddaad dikriga afka ku hayso, wax fiican oo dhan waad ka dheeraysa, meel fiican oo dhan kulama joogo, waa cararayaa. iyo inuu isagu ku cadaabo intuu adduunka ku dhumiyo, aakharana naar uu sababku uu noqdo. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, shayطaan cadow ka dhigta buu rabbiina yidhi, cadowna aan inaguna ka dhigano. wajazaakum allahu khayr wbaarak allah.